waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaaja waa kan waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal bishii aynu soo dhaafnay ee febraayo ilaa maantadan aynu joogno waxaa dunida fara kulul ku haya fayraska korona loo bixiyey ee jidhkaya xaraare sababta u noqda cudurka isla covid 19 aqoon-yahanada hay-adda hu ay ku magacaabeen waa safmar muddo gaaban boqolaal qof nafta ku weysiiyey kuman kale iyaga oo xaraaruga ay hadda la jiifaan meeshii lagu arkana haddiiba sidii gubato ugu fida halkan markaan maraayo malahayga su-aasha kugu soo dhici kartaa waxay tahay cudurkaas iyo barnaamijkan dhaqanku meesha ay iska soo geli karaan kuu sheegaye waa af soomaaliga iyo sida beryahan fayraskaas looga warramo dhowrkii toddobaad ee arrintaasi ay wararka ku jirtay welina way ku jirtaaye waxaa idaacadaha iyo telefishinada af soomaaliga wax ku tabeeya laga maqlaayay iyada oo wariyayaasha intooda badani ay leeyihiin dalka talyaaniga waxaa si xawli ah ugu faafaya caabuqa coronavirus ama ilaa hadda waxaa dalka iiraan caabuqa coronavirus ugu geeriyooday dad tiradoodu ay gaadhay intaas iyo intaa waa oraah aan laga fiirsan iyo qalab laba jibbaaran marka hore coronavirus isagu cudur ma ahee waa virus waa cudurside sidaan soo sheegayna xanuunka uu sababaa wuxuu leeyahay magac u gaara oo waa covid 19 bal horta taas inay wariyayaashu maanka ku hayaan ayaa habboonaan lahayd haddii wax ay ku duraani aanay jirin marka labaad waxaa isna beryahan si xad dhaafa warbaahinta soomaalida ugu badan ereyga caabuq kaasoo ay muuqato isaga oo macnihiisa aan loo dhabagelin howlwadeennada warfaafinta soomaalida in midba uu midka kale ka amaahanayo kolka caabuqow maxaad af soomaaliga ku tahay wax kale ma ahee meel jidhka ka mid ah ayaa qofka nabar kaga dhacaa maalin iyo laba kadib ayuu nabarkaasi bararaa dabadeedna gudihiisa ayay malaxi ku samaysantaa taasoo markii la faro dilaacadaha ama iskeedba inta af u yeelata wixii ku dhex samaysmay ay dibadda u soo baxaan caabuqu waa kaas magacyo kale oo la macno ahi ma jiraan haah waa jiraanoo waa caalir ama waa fasas ama waa hurgun ismaaciil mire ayaa tix gaaban oo uu jeer mariyey ereyga caabuqa ku daray nin ay coloobeen oo godob hore ka hayay isaga oo u hanjabaya ayuu ereygaas adeegsaday wuxuu yidhi ma cido abeesadu kobbay caasha dhigataaye cawska iyo xaabkay gashaa calaf ku dhowrtaaye goortii cag lagu joojiyo yay cadho la toostaaye canqowgay haleeshaa u go'a caabuq dabadeedi waa tahay hablaha wararka idaacadaha tabiye middood ayaa waxay ka warramaysay nin magac leh oo ku noolaa meel dalalka yurub ka mid ah si lama filaan ahna coronavirus uga qaaday nin kale oo ay xidid ahaayeen labada midkood ayaa kan kale walaashiis qaba markaas bay tidhi hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin dumaashigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen waa weer qalada maxaa yeelay ninku oolida uu qabo walaalkeed waa u seedi walaasheedna waa dumaashidiis macnaheedu wuxuu yahay laba ninay dumaashi isuma noqdaane seediyaal ayay isu noqdaan sidaa darteed waxaa habboonayd in gabadhu tiraahdo hebel wuxuu cudurka ka qaaday nin seedigiisa oo ay meel ka wada casheeyeen sidaan mar walba idhaahdana waxaa ila hagaagsan in erayada ku cusub uu weliyuhu waayeelka ka toydo amaba qaamuusyada qoran uu kala tashado
inta aanu adeegsan isaga oo aan hubin macnahooda dhabta ah. cudursidaha corona waxyaabaha uu sababay waxaa ka mid ah kumankii muslimiinta ahaa ee ku cibaadaysan jiray xaramka makaad inay aad ugu yaraadeen. taasina waxay dhacday dowladda sacuudigu markay soo saartay go'aan dulucdiisu tahay goobtaas muqadaskaa in sideedii hore aanay dad fara badani ugu kulmin, tallaabadaasoo looga jeedo in fayrasku aanu si baahsan ugu dhex faafin muslimka cimraysanaya ee dunida ka kala yimid. dharaartii go'aankaa la soo saaray tii xigtay ayaa idaacad aan dhagaysanayay waxaan ka maqlay weliye markuu si faahfaahsan arrintaas uga warramay hadalkiisi ku soo gebagabeeyey. sidaa daraaddeed maanta xaramka makaad waa cidlo. taasina waa qalad, maxaa yeelay ereygu waa cidla ee cidlo ma aha. la waxay ka timid la'aan, wax aan la haysan, wax aan la lahayn ama wax dhiman. tusaale, waxaynu nidhaahnaa hebel waa lacag la'yahay, ama magacyada eebbe ee wan wanaagsani waa 100 midla. marka cidla waa meel aan dad iyo xoolo toonihi joogin. marar badan waxaa la yidhaahdaa cidla ciirsila oo looga jeedo meel hebla cidima joogto oo isaga oo socoto ah qofkii ay qorraxdu ugu dhacdaa heli maayo cid uu ciirsado ama uu ku hoydo amaba uu weheshado. erayada cidla ciirsila iyaga oo sidaas isula socda waxaa gabay ku darsaday sayid maxamed cabdilla xasan. sida la ogyahay cali dhuux oo ay cod ahaayeen ayaa af iyo adinba kula dagaalami jiray. dabadeed muddo dheer ayuu ahaa nin ay daraawiisha raadiso oo haddii la helo aan la bixiyeen. sidaa daraaddeed gabyaagu wuu maadan jiray. dadkii yaqiini siday iigu warrameenna waddooyinka waaweyn kuma sodcaali jirin. welibana meeshii la sheego in daraawiishi ka soo dhowaatay 5 geedi ayuu ka fogaan jiray. gabayadii haddaba uu sayidku u tirin jiray ee dhaarta iyo dardaarwarinta daaranaa, erayadaasina ay ku jireen ayaa waxaa ka mid ahaa: waadiga cidoodaye haddaad goraya cawlowdo ceelkii danood, iyo haddaad caada kor u dhaafto casintaada waan kuugu iman meesha iyo ceege. waa lagu camaadaye wadbaa cawga kuu yimiye cuqlaa adiga kuu baxay haddaan kuu curaaftamaye haddaad cararto ceeriga badeed yaa ku soo celin. wuxuu sidaas ugu hanjabo oo sidaas u wadaba wuxuu yidhi cidla ciirsanaad waxa u kaca dabad calool weyne, waa ninkii cayuuntooda dhaqan caacis dhaafsadaye, waa ninkii sidii reer canjeel caanihii qubay. kolka weliyihii xaramka ka warramayay sow kuma habbooneen inuu yidhaahdo cudursidaha corona dartiis maanta xaramka makaad waa cidla. dhegaystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga. waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.